مسؤولين سرسرة وكسعودي حسب كلمية قارة يوروب أي لجو سودوية مدارك عاصمة الصومال هرجيسا حبناها سودوينية وكمدة هايين وزير وزارة عدالة جمهورية الصومال وزير وزارة كلوميسية خيرات كبدا وزير دولة وزارة عافيمات كمسؤولين كسعودي مدرشة حسب كلمية وقولها حوتشنت حسب كلمية يتاجرياشا حسب كلمية أي هالكاسي كسودوية وحنا وقرين هالكاسي كهذا وزير وزارة عدالة كلوميسية وزير دولة عافيماتك وحنا أي هالكاسي كسودويين مسؤولين سرسرة كسعودة قارة يوروب waxaan aad ugu faraxsanahay inaanu soo dhaweeyno wafdidan ballaaran ee ka timid North America ama waqooyiga Mareykanka iyo wadanka Ingiriiska runtii qurba jooga iyo xisbiga qurba joogiisu wuxuu ka mid yahay tiirarka ugu adag ee xisbiga waxaan u ahay wasiirka cadaaladda waa u dhaxeeya xisbiyada qaranka markay noqoto qaran waana horena u sheegay hase yeeshee waxaan ka tirsanay xisbiga madaxweynuhu wuxuu bixiyay amar ah in ay cadaalad u dhacdo nabad ku dhacdo la ilaaliyo legacy-ga wanaagsan oo doonayno ka tagnay insha Allah tacaala dhamaanteen ba aynu ilaalino codka ciidan siinaya waxaan u jira golay dhaxan ku jira waa ku khasbanahay laakiin waxaan ilaaliyaa haddana anshaxa iyo asluubta qarankan uu leeyahay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waftiga miisaanka leh maanta halkan noogu yimi una yimi maaragtay xisbiga ololihiisa iyo kaambeynkiisa inay nagala qayb qaataan soo dhawaada baan leenahay hawl baa inoo taalla hawl aad baan idinka mahadcelinaynaa waqtigiina iyo shaqooyinkiina iyo danihiinii aad kulli soo laalaabteen oo aad ku tala gasheen maaragtay inaad hawsha halka taalla nagala qayb qaataan kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta golaha xoojinta xisbiga kulmiye waxaana ay tilmaameen doorka ay xubnahani ay ku leeyihiin kaambeynka ololaha ee doorashooyinka marka hore waxaanu idin leenahay ku soo dhawaada wadankiinii magaaladiinii iyo xisbigiinii intaba waxa tiin xoog noo soo kordhay aad bay farxad maanta noogu tahay inaan idinku soo dhaweyno madaarkan cigaal report halkan maanta waxaanu ku soo dhaweynaynaa muraaqibiintii UK North America qurba jooga oo u diyaara inay u kaambeyn gareeyaan xisbiga kulmiye muraaqibiinu noqdaan naftooda iyo maalkoodaba oo huraan baan ku soo dhaweynaynaa maanta halkan waxaan iskugu nimid soo dhaweynta xubnaha qurba jooga ah ee ka yimid wadanka Ingiriiska annagoo ah golaha madasha kulmiye iyo golaha xoojinta kulmiye iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye rag iyo dumar gobol iyo degmo waxaan iskaga nimid inaanu maxay tolay walaaladayo soo dhaweyno marka waxaan leenahay soo dhawaada xalima cabdi ubsiye waxa weeyaan muraaqibiinta Netherland ka timid Holland dalka la yiraahdo Soomaaliland baan joognaa waxaan u nimay inaanu muxuu ah xisbiga kulmiye kaambeynkiisa si weyn oo xooga muruq iyo maalba uga qayb galno ilaa kursigan muuse ku fadhiisino oo kulmiye soo baxana kama tagayno dhulka cirka baan u maraynaa insha Allah bidmillahi kariim gacmooda jir ay wax ku qabtaan waxaynu inoo balana inaynu muuse kursiga saarno guul iyo gabadhiba kulmiye maanta waxa oo maalin aad iyo aad u qaaliya maalin weyn waxaan maanta halkan dhammaan dadkan isugu yimaadeen madax iyo taageerayaal balihi inay soo dhaweeyaan xubnaha qaaliga ah ee nooga yimid UK iyo America labadaba ku soo dhaweynaynaa waftigan ballaaran ee nooga yimid UK nooga yimid baan soo dhaweynaynaa Bristol baan soo dhawaada gacmo furan soo dhawaada kulmiye guul baan leenahay gabadhii munaasabadaasina waxa iyaduna ka hadlay mas'uuliyiintii lagu soo dhaweeyay madaarka caasimada Soomaaliland ee Hargeysa ee ka socday wadamada Bristol waqooyiga America Liverpool iyo UK waxaana ay tilmaameen ujeedada ay u maadeen dalka iyo sida ay uga qayb qaadanayaan kaambeynka ololaha ee doorashooyinka aad iyo aadna waan idinka mahadcelinayaa sida sharafta iyo milgaha leh ee maanta noogu soo dhaweyseen Cigaal International Airport annagoo u nimid hawl xisbiga hawl waajib nagu ahayd hawl aanu maaragtay doonayna inaanu wax ka qabanno dhinacayaga oo aanu inta u soo soconay oo aanu doonayna inaanu ka muuqano si aynu mar labaad u hiigsano kursiga aanu maanta hawl xisbigu leeyahay u soo banbaxnaa sharaf weyn bay noo tahay hawsha muraaqibiinta oo runtii muddo soo socotay imikana isa soo taraysa boqolaal iyo boqolaal qurba jooga oo maalin walba ku soo qulqulaya wadanka waa yididila xisbiga waa guul xisbiga u soo korodhay waxaan rajaynaynaa
in qurbajooggu ay ka qaataan doorkii looga bartay anu gudoomiyihii guud ee laanta Bristol baan ahay waxaan u nimid waa shaqadaan xaggaa ka soo wadnay oo soo taxnayd ilaa intii xisbigu uu soo jirayba ayaanu doonaynaa inaan halka ka sii dhaqaajino wada salaamaynaa saad noo soo dhaweyseen aad baan idiga mahad celinaynaa horta waxaan u nimid inaanu ka qayb qaadano kambeynka kadibna aanu noqono muraaqibiintii laga soo xulay qurbaha ayaanu nahay anagu waxaanu ka soo jeednaa UK waxaanu u nimid inaanu ka qayb qaadano hawshii halka nagaga haboon xisbiga kulmiye dhammaantiin waa idin mahadnaqayaa waxaan ka wakiilahay Liverpool oo dhan marka magaalada sideedii ayay kulmiye u tahay imikana waxaan halkan u nimid dardarta iyo ka qayb qaadashada xisbiga sharaxa xisbiga Muuse Bixi Cabdi ilaahay iidankii wuu ku guuleysanayaa doorashadan sida aanu ugu nimid waxaanu doonaynaa inay halka ka sii socon karto doorashooyinka aynu ku maqaam gaadhnay aqoonsigeenu raadinayay doorashadu ku dhex jira si nabada oo habboon oo hagaagsan marka uu dhacdo 6 doorasho tii lixaad bay noqonaysaa tan waxaa soo dhan sareey Soomaaliland in nabadgelyada ilaashateen baa keentay ujeedadeenu waxa weeye maanta inaan soo saarno Muuse Bixi Cabdi Muuse Bixi Cabdina insha Allah bismillaahi keen madaxweynaheena mustaqbalka dhow waan ku guuleysan doonaa inaan soo saarno mahadna waxa la ilaahay mahadna waxa la madaxweynaheena qaaliga ah Axmed Maxamed Siiraanyo waxaan leeyahay waxaan u nimid anagu inaanu ka qayb qaadano kambeynka xisbiga kulmiye oo aanu qurbaha iyo dibadaha ka soo sameynay haddana aanu doonayno inaan dhamaystirkiisii ugu dambeynay aanu gallo marka anigoo aan waxba hadalka badinayn aad waxaan u salaamayaa madaxda wasiirada xildhibaanada dadweynaha sharafta leh iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye ee maanta nagu soo dhaweeyay Cigaal International Airport Hargeysa Xamse Qurbaani telefishinka qaranka Somaliland Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa